wasiirka arrimaha dibadda ee Iran Abbas Araghchi oo booqday Ruushka Iran oo ku goodisay inay xiran doonto marinbiyoodka Hormuz. Abbas Araghchi waa wasiirka arrimaha dibadda ee Iran ayaa maanta kulan balaaran kula yeeshay madaxweynaha Ruushka Vladimir Putin magaalada Moscow kadib weerarkii ay maalintii shalay Mareykanku ku qaaday xarumaha nuclear-ka Iran. Waxay ka wada hadleen arrimo khaas ah kulli halkaasi arrin naxariis ah lagama hadlaynin. Iran waxay sheegeen inay xiran doonto marinbiyoodka Hormuz. hadalkaasi ayaa yimid kadib markii TV-ga qaranka ee Iran ee Press TV uu sheegay in baarlamaanku uu ansixiyay qorshe lagu xirayo marinbiyoodka, balse wuxuu intaasi ku daray in go'aanka ugu dambayska uu leeyahay golaha sare ee amniga qaranka. Suuriyada Hormuz oo ah marinbiyood dhooban oo isku xirta gacanka Faris iyo badweynta Hindiya waa mid ka mid ah surrimada ugu muhiimka ah dunida, maadaama uu marayo 5 meelood oo meel shidaalka adduunka laga isticmaalo iyo 4 meelood oo meel gaaska dabiiciga ah ee dunida laga isticmaalo. Qaraarka ka soo baxaya baarlamaanka Iran haddii uu hirgalo saameyn daran ayay ku yeelan kartaa sicirka shidaalka ee suuqyada adduunka oo si weyn ugu tiirsan saliidda ceeriinka iyo gaaska dabiiciga ah ee ka gudba surriinkaas. Haddaba in yar aan ka eegno saameynta ka dhalan karta haddii ay Iran xirato marinbiyoodka Hormuz. 1. Saameynta dhaqaale ee caalamka. 2. Saameynta siyaasadeed iyo mid diblomaasiyadeedba. Dagaal caalami ah ayaa qarxi kara wadamo badan sida Mareykanka, UK, Faransiiska iyo dalalka Khaliijka sida Sacuudi Carabiya ayaa u arki kara tilaabadaasi mid colaad abuurayso. Waxaa dhici kara in ay ka jawaabaan si military ah. Saameynta dalalka Carabta iyo Bariga Dhexe. dalalka saliidda dhoofiya sida Sacuudi Carabiya iyo Imaaraadka dhoofintooda shidaalka ayaa hakad geli kara, taasi oo dhaqaalahooda si toos ah u dhaawici karta. Saameynta Soomaaliya iyo Geeska Afrika. Qiimaha badeecadaha oo sare u kaca, shidaalka, raashinka iyo agabka kale ee la keeno Soomaaliya iyo Geeska Afrika waxay noqon karaan kuwo qaali noqda sababo la xiriiro xanibaadda maraakiibta. Xiritaanka gacanka Hormuz waa mid halis ku ah amniga caalamka, dhaqaalaha dunida, ganacsiga badda, Bariga Dhexe iyo dalalka soo koraya sida Soomaaliya. Waxay noqon kartaa tallaabo u horseedo dagaal weyn, cunaqabateyn cusub ama isbeddelka istiraatiijiyada ee suuqyada caalamiga ah.